barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi Cali Casi ayaa deeq ka kooban agab xaqal ciid oo dhar ah ku wareejiyay maamulka madrasada Daarul Huda ee magaalada Alleybaday. Deeqdani agabka xaqal ciidka ah ee la gaarsiiyay maamulka madrasada Daarul Huda ee magaalada Alleybaday ayaa waxaa soo kala diray aadan xaaji janaale iyo naasir xaaji cabdikariin oo ka mid ah qurba joogga reer Somaliland iyo waliba muxsiniin kale. deeqdaasi oo ka koobnayd dharka wiilasha iyo gabdhaha isla markaasina ay ugu tala galeen ardayda wax ka barata madrasada Daarul Huda ee magaalada Alleybaday ayaa waxa ay labada mas'uul ee aadan xaaji janaale iyo naasir xaaji cabdikariin ay kala qaateen isla markaasina ay ciid siiyeen midkoodba 35 arday oo uu iibiyay dharkii iyo kabihii uu ku ciidi lahaa. barasaab ku-xigeenka gobolka Gabiley Cali Cabdi Cabdilaahi oo deeqdani ku wareejiyay maamulka madrasada Daarul Huda ayaa waxa uu yiri halkan maanta degmada Alleybaday oo aanu nimid hawl khatinkii xifdiga quraanka ee bisha Ramadaan dhinaca kalena waxaan la kulanay hadiyadii ciidda oo ay dad muxsiniin soo bixiyeen aadan xaaji janaale iyo naasir xaaji cabdikariin 9 qof ciidoodii weeyay oo dhalinyara 9 ka 7 kamida waxa soo bixiyay labada sinaan sheegay aadan xaaji janaale iyo naasir xaaji cabdikariin oo 35 qof soo ciidsiiyay 20 qof ee kalena waxa soo bixiyay 2 nin oo muxsiniin oo iyagu yiri magacooda ka cudur daateen la sheego jazaakumullahu khayr halkii aad ka soo saarteen ilaahay wax khayr la haydin ku bedelo baan leenahay qabil Ramadaan waqtigii wax la baxayay dadka laga farxinayay 9 ka qof ciidooda waxaan ku wareejinaynaa halkan madrasada Daarul Huda ee Alleybaday waxaan ku wareejinaynaa Sheekh Muuse Daawud Iriir oo maamulaha guud ee madrasada Alleybaday ah Sheekh Muuse naga gudoon dharkaasi idinkaana gaarsiin doona dhalinyartii dadkii loo soo diray. wax lagu jiraa 10kii Ramadaan ugu dambeeyay ayaynu ku jiraa waa xilliga qof kasta oo jeebkiisa intuu wax ka soo saaro walaalkiisa baahan siiya meel adag ay tagiso halkan imika waxa lagu hayaa dhar ciyaal waa 9 qof dharkood oo wiilal iyo gabdho isku jira aadan janaale iyo naasir xaaji cabdikariin oo min 35 qof soo bixiyay iyo 20 qof ay soo bixiyeen dad muxsiniin oo aan magacooga yidiyaan laga sheegin ilaahay khayr ka siiyo halkii aad ka soo saarteen ilaahay bedelkeeda idin siiyo waxaad dad u damqaday walaalahooga farxadda si ay ula qaybsadaan walaalahooga muslimiinta walaalahooga ay meel wada degan yihiin ay isku guri isku xigaan qof kasta oo muslim wax leenahay ama gobolkeena ka soo jeeda ama reer Somaliland war qof kastoo sida ilmahaaga ugu fakirayso in uu qaato labiska ugu quruxda badan iyo dharka ugu quruxda badan iyo farxadda ugu wanaagsan inuu qaato waxa weeyaan ilmaha yar ee agoonka ah rajayga ah danyarta ah sugayaan waxa weeyaan waajib maaha inuu kaaguna uu ka ugu khatarsan qaato kan guriga ku dhisanna uu subaxii isagoo biibilaysto dhaafay dawlka kooyi ilaahay uu arkay oo muu wayn waxa la qof kastooba warjeebkiina gacanta u sii daayo sida inamada jeebkooda gacanta ku sii daayeen ay walaaloodu ugu horeen oo hora bixiya haddii ganacsato tahay ducaynayna waxaan leenahay halkii aad ka soo saarteen ilaahay wax ka khayr badan idinku bedelo waxaan leenahay ilaahay caafimaad ah idinku siiyo ubadka ilaahay idinku hagaajiyo ooriyaha ilaahay idinku hagaajiyo ilaahay marka darajadiina kor ugu qaado duco dhan baan ducaynaynaa way naga farxiyeen waayo dadka marka masaakiinta iyo dadka marka sidan oo kala cidda marka wax ka farxisa dadka muslimiinta oo dhan bay ka farxiyeen
runtii aad baan ugu ducaynaynaa ilaahay baan leenahay naga aqbal ilaahay ma inay naga aqbali waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wax kale oo oran karno oo markaan ugu abaad guudi karna ma jirto waxaan leenahay dadka muslimiinta ah ku soo dayda walaalahaasi waa 4 qof oo markaa kaliya waxaad marinaysaa hadii waxoogaa kale ku soo biiri lahaayeen waxa weeyaan wax miskiina oo markaa waxlaba lama arkeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ha lagu daydo maamulaha madrasada Daarul Huda ayaa isaguna goobtaasi hadallo kooban ka soo jeediyay waxaanu yiri deeqay soo bixiyeen walaalaheen oo aad u dadaalay waxaan anagu hadlayaa magaca maamulka madrasada Daarul Huda magaya kooban waxaan iyagana u mahad celinayaa TV-ga qaranka Somaliland iyo TV-ga TV oo labada TV iyaguna hawsha warbaahineed ka qabanaya dadkooda iyo dalkooda u shaqaynaya idinkana leenahay jazaaka allahu khayra jazaa inta kadib waxaan u ducaynaynaa aadan maxamed cabdi aadan janaale iyo naaka xasaasiin oo gobolka qofkii soo bixiyay ciidooda oo aan leenahay saad maanta uga farxisan ilaahay maalinka aakhiro ha idinka farxiyo waxa kale iyagana u ducaynaynaa muxsiniinta gacanta xasin oo aan leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku daro walaalayaal inta kadib waxaanu aad iyo aad ugu mahad celinaynaa iyagana mas'uuliyiin culimada iyo gabi ahaanba cid kastoo ka qayb qaadatay aad baanu ugu faraxsanahay waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilkaase